السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين دمان أمة إسلامكم مالك ساعتونك تعليل ساعت كجوكتان وأولادكين محمد شمال وكنا لطلكم رايكنك waxaan rabaa inaan halkan kasoo iraahdo laba iyo hal gabadha walaasheena ah Soomaaliyeed lagu kufsaday wadanka Soomaaliya aad baan ugu xunnahay dhamaan dhalinyarada sidaan u nahay Soomaali weyn meel kasta ay ku nool yihiin ma sha Allah waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan rabaa arrin kale inaan ka hadlo xasaasi ah ninkan galaasheeda markaas oo TV-ga ii saaran iyo ninkan Nigerianka ah iyo ninkan Soomaaliga ah ninkan Soomaaliga wuxuu ku nool yahay wadanka Soomaaliya qaas ahaan degmada Kaaraan Djibouti ayuu ku nool yahay sida halka loo dhigay ninkan waa nin Nigerian ah oo markaas ka hadlayo ninkan Soomaaliga ah waxaan dareemayaa gabadha Soomaaliga ah markaas oo lagu kufsaday wadanka Soomaaliya Facebook-da hadaad aragtid dhalinyarada ragga dumarka shuyuuqiinta aqoonyahanka waa la wada ooynaya aniga xataa dadka ooyay ayaa kamid ah laakiin ninkan jareerka ah looma ooynin waxa loogu ooyi waayay waxa la yiraahdaa looma ooyay sidiisaba laakiin insha Allah ilaahay baan tala saaranay ilaahay baa karabkeena taagan aduweynaha ayaa karabkeena taagan Soomaali weyn waxaan dareemaynaa maanta inay ka jirto cunsuriyad mise inay ka jirto markaas adoomeys waxa adoomeys ugu dambeeyay sidaan ognahay wadanka South Africa mise sida loo yaqaano Junub Afriqiya sida loo yaqaan ayaa adoomeys ka jiray marka hadana waxaan dareemaynaa wili Soomaali inuu ku jirto adoomeys mise cunsuriyad inay ka jirto taasoo tilmaamayso waxaan dareemayaa gabadha walaasheena ah la kufsaday waxa ka soo hadlay aqoonyahan waxa ka soo hadlay macalinka ugu weyn Soomaaliya sida loo yaqaan Sheekh Umul iyo waxa ka soo hadleen macalinka kale ugu weyn sheekh ugu weyn Sheekh Mustafa ayaa ka soo hadlay sheekhiyo aad u far badan ayaa ka soo hadlay need kasta aad u buuxa waxaad dareemaysaa BBC inay ka hadashay inay VOA-da Al Jazeera meel aan laga hadlin mara laakiin ninkan jareerka ah qaf ka hadashay cidna uma maqno ceelna uma maqadno waxaan dareemaynaa wili Soomaali inay ka jirto cunsuriyad mise adoomeys inay ka jirto taasina waa mid aan u dul qaadan karin sidaan u nahay jareer weyn waxaan dareemaynaa in aan maanta aan guilty ayaan muujinaynaa maanta madaxa inaan lagu taagan yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah jareer weyn inaad ka kacdin hurtada ka kacdin waad arkaysiin arrimaha ka dhacaya soo ninkan in lagu tilmaamin markaan nin Soomaali inuu ahaan waxaan tilmaamayso markaas in ay Soomaali ay dhahayso ninkan Soomaali maba ahabo يعني Soomaali kama soo jeeda anigana waxaan nahay ragga iyo dumarka odayaasha aqoonyahanka lagu yimid Soomaali oo Soomaaliya maanta lagu tilmaamo wadan Afrika ah aan ka soo jeedin oo ka soo jeedaan Afrika laakiin ragga maanta oo cunsuriyada nagu haayo mise ragga maanta aan tilmaamayo in ay yihiin dad cunsuriyad ah oo Soomaalida ah marka anigana sidaan u nahay jareer weyn aad baan ugu xunnahay dhalinyarada qurba joogta sidaan u nahay dhibaatada ku dhacday ninkan walaalkeena ah nin Nigerian ah ku nool wadanka Mareykanka oo askari ah ka hadlay laakiin raggii Soomaalida ahayd mise shuyuuqiintii sida Umul iyo Sheekh Mustafa sida dadka si fiican loo yaqaan waa raggaas hadda dumarka iyo ragga iska daabi dhalinyarada yar iska daa raggaas waa ragga si fiican loo yaqaan kama hadlin BBC kama hadlin CNN kama hadlin sida ishak qanaatida Soomaaliya dhamaan kama hadlin taasina waa mid dib dhac ah markaas aan tilmaamayno anaga in aan ku jirno maanta cunsuriyad mise adoomeys aan ku jirno sidaan u nahay jareer weyn Soomaali gudaheeda waa inaad wuridada ka kacdaan dhibaatada lagu hayo Soomaali in aan ka hadalnaa aduweynaha aan u bandhignaa waa ninkan hadda nin Soomaali ah hadda Soomaali ninkan aad maanta u qiran lahaydeen maanta neetiyada waa ka wada hadlayeen BBC way ka hadlayeen CNN way ka hadlayeen waxa ka hadlay Al Jazeera way ka hadlayeen laakiin haddii anaga ininka kufsanaysaan yaa noo soo bandhigayo haddaa ininka nagu taagan tihiin yaa noo soo bandhigayo waxaa la yidhaha saanta ninkiisa ugu taagan yahay marna codkiisa banaanka ma soo dhigi karo marka maanta waxaan ugu tilmaamteen anagana leedihiin sidaad u tihiin Soomaali laakiin anaga waxaan ognahay aan xaqiiqo ay tahay Soomaali maanta in ay leedahay Soomaali jareer mise Soomaali Afrikaan inuu leeyahay nin Carab ah ma aha Soomaali Israa'iil ma aha Soomaali Carab ma aha Soomaali Portugiis ma aha waa Soomaali jareer waa wadanka dadka iska leh sida aniga aan wadanku leenahay maanta maalin ahayna waa laga sheekeyn doonaa waan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay ummadda ha ka waantoonto sida markaas cunsuriyada lagu haayo wadanka Soomaaliya waan ognahay maanta waa wadan aad barwaaqo ah oo aan nabad anfacay kuligeena timirta iyo wax kastaba markaas Soomaali maanta aan nakaafin karo laakiin waxaan dareemaynaa maanta cunsuriyad inaan ku jirno oo aan guilty aan nahay Soomaali qalbigeena maanta qalbigeyga oo maanta mise asaawadeed kor u kacsan tahay taasoo ah ninkan walaalkeena ah jareerka ah maanta isbitaal jiifa shan rag lagu kufsaday
وعشان رك وحلو كفصدي ونين رك صومالي كفصتي أسجن وصومالي قبل لو كفصدي وصومالي مين كان لو كفصدي وصومالي مركا محي استعمان رك يتو مركا معلمينتي إيو أخوياhan كهدي كهدلي واين رك لو كفصدي هدي لقى هدلي واي دينتا محي كخبتها رك إنا لو كفصدو قالوا حتى ما أقول رك إنا لو كفصدو مركا هدي هدا نقطي إن صومالي لو كفصدو رجع مسؤوليته لو هايو مسجريرته لو كفصدو ما أنت واحد أركيسات صومالي إن يكوتشرتو إن dadka loo yaqaan jiray weyn Soomaali baantu kaamonka inay ku jiraan oo sida gobolka Shabeellaha dhexe gobolka Shabeellaha hoose Hiiraan ka soo qaad afgooye ka soo qaad Kismaayo ka soo qaad marka kubigoodaba waa la soo kuusay kaamam ayaa lagu geeyay waxa la leeyahay marka waxa la sheegay waa kaliya burco iyo boosaasay iyo barooro iyo bararay iyo bruno iyo Ethiopia iyo Kenya arareheeda وبهدل باكو دعاي دباتا كدعدي بيلان باكو دعدي لودي باكو دنتي ددكان واساف وركان كل ما laga hadlo ku jiraan meelahan kaama ku jiraan ma laga hadlo waxa looga hadlayaa waxa hadii laga hadlo dadka duwanaha oo arko markaas waxay dareemayaan Soomaalida in ay cunsuriyad ka jirto laakiin waxa maanta ugu taagan waa Soomaali weyn waa in aad isha aad furtaan oo aad mangaliye aad siisaan walaalihiina mise dadka aad ugu timideen Soomaaliya dadka cadaanka ah South Africa dadka madowga ayaa loogu tagay waxa dareemaysaa dalka Mareykanka dadka madowga dadka Hindida ayaa loogu tagay hatta lama sheego nin Hindi ah oo Mareykan ah ma jiro wadanka South Africa hatta waxaad arkaysaa nin cadaan oo South African ah ay ku lahayn mal ninka Soomaaliya ku yimid ay ku noqday Soomaaliya waxaad ogaanaysiin dadka aan u naqaan jalaa in aan meesha aad ka timideen aad ku qantoontaan waxba wajigay ma daboolay jareertan waxaan ka codsanayaa inay codkooda ay furtaan afkooda ay furtaan qof wax ka qaada ma leh qofka adduunka hal mar ayuu dhintaa hal mar ayaa dhimanaysa janna iyo naar ayaa loo isku balan qaaday ninka xumaan sameeyo naarina la gelinayo ninka samaan sameeyo janna la gelinayo anaga waxaan wadna waa samaantaana wadna waa in anaga ogolaantaan hatta naga ogolaanin waxaad ogaataan markaas in aad wixii markaas anaga oo asaakeena ah aan burburin doono haduu Ilaahay yiraahdo dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo TV wax ma jiro SPTV jiri kaliya jiro adduunka waa may waa ka fiir SPTV jirna kaliya ayaa laga soo saaray waa Soomaali jireeray iskala SPTV Soomaalida kale TV-yada kale ilaa 15 ay gaaraan lagama soo saarin BBC Soomaaliya ayaa iskala lagama soo saarin waa faanteena marana BBC waxaan ku leeyahay arrimahan xasaasiga ah oo lolo kacay ragga Soomaaliga ah mise ragga lagu yimid wadanka iska leh jareer weyn Soomaaliya in aad ka hadashid oo aad aqoonyahankeena is arfuriisto markaas ninka wadanka leh wuu soo bixi doonaan aad baan islaam dhamaan ummadda islaamka meel kasta aad joogtaan casaabadeeda aad ayay u kacsan tahay waxaan ku kacsan tahay ninkan walaalkayga dhibaatada ku dhacday aad baan ugu xumahay dhalinyaro badan saaxiibo oo Soomaali ayaan leeyahay dhalinyarada soo badan xasas ayaan leenahay xasas waa is guursanaa laakiin maanta waxaan dareemaynaa guurkii wixiina laga soo tagay sida aan u nahay jirar weyn in maanta dhibaatadan ku dhacday ninkan isbitaal ayuu jifaatay halkan midi ayaa laga geliyay meeshaas faleeb ayaa ugu suray dhibaatadaas ayaa gaarsiiyay waa cunsuriyad ayaa gaarsiisay mana ogolaaneen arrimahaas dhacay waa nin Nigerian wax ka hadlaayo ragii Soomaalida wax ka hadlay ma jiro marka maxaan sameeynaa alahaas kadib ma dhuntaas jirnaa ma Soomaali baan iga tagnaa fadlan wadanka loo daaya nooga baxa wadanka mise anaga iga baxeeno markaan iga baxnan waxaan markaas adduunaha u bandhigeena wadankii anaga aan leen inaan laga soo saaray aad baan islaami Soomaali weyn ninka Singapore ayaan islaamayo waxaan leeyahay soo dhawaada BBC waxaad ku tilmaantaa in aad tahay nin ahlul wadan ah laakiin waxaan ogaaday maanta nin cunsuriyad inaad tahay BBC-da cunsuriyad inaad tahay maanta ka sheegaa meeshan cunsuriyad waxaan kaloo aan sheegaa haddana Soomaalida dhamaan cunsuriyad inay yihiin annaga inaa cunsuriyad lagu haayo anagoo wadanka nagu yimid inaa wadankeena looga qaatay haddana raggeena la kufsanaa naagaheena waa la kufsaday dumarkeena waa la kufsaday caruurteena waa la kufsaday haddana maanta waxaa la isku dayay raggeena inaa la kufsado taasi waa mid aan u dul qaadan karin a'uudhu billahi min ash-shaytaanir rajiim war shaytaanka iska naara war Soomaali weyn Ilaahay ka cabsada war rag yaa la kufsanin
والقوم لوط يا تمد والقوم لوط على سقطه سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ركب على كرسي الركب دمر يا لخيلين يسين دمر ولا قلت لك إن لقى وحي الرب لو سميه أو مركز الدولة ماشي رد الله تكتب إلهي أو قجوي وحي مركز لو قلت لك أو حبسي إيو هدوء يا دل لكن رجع الكفصة نو كمان دعينا دونك أرجع هرت ولا كفصة رجع الكفصة قولي يتوين ما مخلين أرنت أنا كده عيسى سومالي أرنت أميت أنا لو تقول خالد كرماها ورلانيا سومالي آوي أخويا أنك سومالي آوي شريرك سومالي آوي سومالي بانتو آوي سجال قبل أيام تكنا سجال قبل وتنك خيب بانكولنا هاي هذا ليدين وتنك أنا أسكله والله ولا سأركا وتنك هذا ليدين إنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون رك أيالكم صدي إنا لله وجينا مرة يقول لحية